warbixintan waxaan ku eegaynaa madaxdii soo martay Soomaaliya ee doorashooyinka xilligooda ku qabtay iyo kuwii hareer maray wixii lagu heshiiyey. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan oo hal sano si ku meel gaar ah dalka u hogaaminayay ayaa doorasho toos ah u soo istaagay 1961 waxaana ay tartameen Sheekh Cali Jimcaale oo isna reer Hiiraan ahaa. waxaa la sheegaa inay ahayd doorashadii ugu adkeyd ee Soomaaliya taasoo wareegii saddexaad uu hal cod ku adkaaday madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan. doorashadan waxay dhacday 6 Juulaay 1961. madaxweynaha la doortay wuxuu xilka haynayay muddo 6 sano ah. Aadan Cadde wuxuu doorashadii labaad abaabulay bishii Juun 1967 waa bil ka hor xilligii uu dhammaan lahaa muddo xileedkiisa. sidii uu xeer ku dhigayay madaxweynuhu waa inuu doorasho qabtaa bil ka hor dhammaadka muddo xileedkiisa sidii ayuuna sameeyey Aadan Cabdulle Cismaan. waxaana doorashadaasi ku soo baxay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake. Sharmaake ayaa la dilay markii uu 2 sano xafiiska joogay isagoo aan dhammaysan muddo xileedkiisa. militariga Afgambiga sameeyey waqti dheer ma qaban wax doorasho ah, laakiin 1979 ayay meel mariyeen dastuur afti loo qaaday waxaana ugu muhiimsanaa in waddanku uu yeelanayo hal xisbi oo qura kaasoo ahaa xisbigii hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed iyo in qofka madaxweynaha u tartamaya uu soo sharaxayo xisbigu golaha shacabkuna ay dooran doonaan. baarlamaanka xilligaasi jiray ayaa 26 Janaayo 1980 u doortay Sarreeye Gaas Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna xilka haynayay muddo 6 sano ah sidii uu dhigay qodobkii 8aad farqadiisii afraad ee dastuurka 1979. 6 sano kadib bil ka hor xilligii muddo xileedkiisa Siyaad Barre ayaa doorasho kala qabtay bishii Diseembar 1986. markan isbeddel cusub ayaa lagu sameeyey nidaamka madaxtooyada waxaana ka mid ahaa in doorashada madaxweynaha laga dhigo mid dadweynuhu toos u soo doortaan iyo inuu noqdo madaxa dowladda iyo madaxa xukuumadda. waxaa kaloo la sharciyeeyey in muddada xilhaynta madaxweynaha laga dhigo 7 sano halkii markii hore ay ka ahayd 6 sano. doorashada ayaa dhacday 23 Diseembar 1986 waana bil ka hor xilligii uu waqtiga Siyaad Barre ku ekaa. musharaxa kaliya ee doorashada u soo istaagay wuxuu ahaa Sarreeye Gaas Maxamed Siyaad Barre oo ma jirin mucaarad iska garab sharaxay. sidaas ayuuna ku guulaystay waana marka la isticmaalay jumladda caanka ah ee nin dooran doorta xawtireen dadkana xawdan raajisan. Maxamed Siyaad Barre ayaa xukunka xoog looga tuuray 1991 intii aan la gaarin doorasho kale. ku dhawaad 10 sano oo dagaalo sokeeya kadib shirkii Carta wuxuu ahaa buuc cusub oo u furmay geedi socodka siyaasadda ee Soomaaliya. madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa loo doortay inuu hogaamiyo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay Jabuuti. doorashadiisu waxay dhacday 26 Agoosto sanadkii 2000. waxaa lagu heshiiyey inuu 4 sano xilka hayo. marka la eego xilliga la doortay iyo xilliga uu ka tagay xafiiska ee la soo doortay Cabdullaahi Yuusuf waxaa u dhaxeeya farqi hal bil ah maadaama madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf la doortay bishii Oktoobar 2004 iyadoo muddo xileedka Cabdiqaasim uu ku ekaa bishii Agoosto 2004. madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo laga rabay inuu doorasho qabto bishii Oktoobar 2008 ma uusan qaban maadaama ay Muqdisho ka socdeen dagaallo xooggan oo u dhaxeeyay ciidanka Itoobiya iyo kuwa dowladda oo isku dhinaca iyo xoogii wax iska caabinta oo garab ka helayay dadka reer Muqdisho. Cabdullaahi Yuusuf oo isaga tagay dowladdii xil lama wareejin heshiiska ayaana sidaas ahaa. wadahadalladii uu ra'iisul wasaare Nuur Cadde hogaaminayay ee Jabuuti ayaa lagu soo dhisay dowladdii wadaagga ahayd ee ka koobnayd 550 xildhibaan. Shariif Sheekh Axmed ayaa loo doortay inuu hogaamiyo dowladdaas bishii Janaayo 2009. wuxuu haystay inuu 2 sano dalka uga saaro ku meel gaarka doorashana ku qabto dastuurna ku sameeyo. marka laga ambaqaaday xilliga la doortay Shariifka waxaa laga rabay inuu doorasho qabto bishii Janaayo 2011 laakiin sidaas ma samaynin. murankii u dhaxeeyay ra'iisul wasaarihi xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo afhayeenkii baarlamaanka ee xilliga Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sababa in lagu kala baxo heshiiskii Kampala Accord bishii Juun 2011. axdigii Kampala wuxuu dhigay in hal sano loogu daro madaxweyne Shariif iyo xubnaha baarlamaanka inuu ra'iisul wasaaruhu bil gudaheed isku casilo iyo inaan xukuumadda cusub wax mooshin laga keeni karin. muddo kororsi la farsameeyay ayaa halkaa ka dhacay waxaana heshiiska saxiixay madaxweynihii xilligaas Shariif Sheekh Axmed gudoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo Danjire Augustin Mahiga. sanad iyo 2 bilood kadib Shariif ayaa bishii Sebteembar 2012 qabtay doorasho madaxweyne taasoo lagu doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee aan ku meel gaar ahayn burburka kadib. Xasan Sheekh isna waxaa looga fadhiyay inuu doorasho qabto Sebteembar 2016 balse ma dhicin oo waxaa jiitan dheer kadib la isla gaaray bishii Febraayo 2017.
halkaas waxaa ku cad dib u dhac 5 bilood ah inkastoo dawladdu ay ku qeexday arrimo farsamo. Farmaajo waxay 4 sano ka dhamaatay isagoo maamul goboleedyadii hana waayay dagaalo ka riday Gado, Dhuusamareeb iyo Baydhabo. Wuxuu duulaan ku qaaday siyaasiyiintii la tartantay. Wuxuu diiday banaanbaxyadii dastuuriga ahaa. Wuxuu rasaas u adeegsaday dibadbaxayaal uu ku jiray ra'iisul wasaarihiisii hore. Wuxuu weerar ku qaaday madaxweynihii isaga ka dhigay ra'iisul wasaaraha iyo midkii xilka ku wareejiyay. Wuxuu ku guuldaraystay inuu qabto doorasho nooc cusub ah. Wuxuu samaystay muddo kororsi. Caasimadda ayaa markii ugu horreysay laga qaxay tan iyo markii ay ciidanka Itoobiya ka baxeen. Xaaladda dalka ayaa gaartay in madaxweynihii lagu aamini waayo amnigii dalka iyo doorashadii oo markii dambe uu iska wareejiyay.